ورا الغرميد ريد ميد هذا kula wacan daawadayaal halka waa muuqaalka TV qodobada barnaamijyadeedkeena inaan kugu heen waxa ugu daroon ciidamada Itoobiya oo lagu jabiyay dagaal ka socda waqooyiga Itoobiya iyo maalintii shanaad oo dagaal ka socda wadanka Itoobiya wararkii ugu waaweyn ayaan idin heynaa ciidamadii iyo hubkii ugu badnaa oo la geeyay deegaanada Canfarta maxaa ka cusub xaalka guud ee Itoobiya maadaama maalintii shanaad gobolka ugu dhacay dagaal aanu joogsi lahayn duqeymii ugu dambeeyay ee ciidamada militariga ee TPLF ay geysteen TPLF oo guulo sheegtay iyo sidoo kale ciidamada militariga oo beeniyay wararkaas ayaan eegi doonaa saaxiibayaal aragtida saaxiibada barnaamijyadeedkeena ay kommentiyada noogu soo qori karaan waxa weeye in maalintii shanaad dagaal uu ka socdo Itoobiya oo aan joogsi lahayn iyo xaalka sidoo noqon karo ayaan saaxiibadu aragtida ka soo dhiban karaan muuqaalka laagsar oo sii shargaray barnaamijyadeedkeena ayaan gudagaleynaa aynu ku bilowno dagaalka ka socdo agagaarka Meersaalka la yiraahdo ayaa gala maalintii shanaad oo xiriir ah waxaana lagu soo waramayaa in dagaalo culus halkaas ay ka socdaan afayeen u hadla kooxda TPLF oo lagu magacaabo Gabriel Sadaq ayaa sheegay in guulo waaweyn ay gaareen ciidamada TPLF isla markaana ka gaareen dagaalada ka socdo waqooyiga Itoobiya gaar ahaan halka la yiraahdo Meersa waxa uu sheegay inay burburiyeen boqolaal ka mid ah ciidamada militariga halka ay u badan ku soo furteen sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada militariga ee kuwa TPLF weeyaan warbaahinta Tigreega ayaa maanta baahisay waa daqiiqado ka hor baahisay muuqaalo ay ku soo bandhigtay hub caalami ah oo casri ah oo ay leeyihiin dawladda ciidamada militariga iyo kuwa maxaarada kuwaas oo ay sheegtay inay ku qabsatay dagaalka maanta ka dhacay deegaano ka mid ah waqooyiga Itoobiya gaar ahaan agagaarka Meersa dagaalkan oo ah maalintii shanaad isla markaana gobolka dhacay ama gobolka uu dhacay isagoo socdo ayay ku soo bandhigeen qoryo waaweyn oo daba jeex u badnaa iyo sidoo kale kuwa gawaarida saaran waxay sidoo kale sheegeen inay gubeen gawaarid dagaal oo ay lahayn ciidamada Itoobiya iyo kuwa maxaarada mid ka mid ah saraakiisha militariga oo si dhankiisa warbaahinta madaxa bannaan la hadlay ayaa beeniyay guulaha ay TPLF sheegatay inay ka gaartay dagaalka Meersa ka socdo waxaana uu sheegay in markasta loo gacan sareeyay war saxaafadeed ay soo saareen uu yahay mid been abuura oo ay ku doonayaan in ay ku sheegtaan awood been ah oo aysan lahayn sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada militariga Itoobiya ay gacan ku sareeyeen dagaalkan iyadoo dhanka kale barakacayaasha ay ku qulqulayaan magaalada Teese iyo maalintii ugu dambeysay waxa ay maanta ahayd maalintii shanaad iyagoo sii kordhaya maalinta ka dambeysa waxaana lagu soo waramayaa in magaalada ay buux dhaafiyeen dad ka soo cararay goobaha ku xiran goobaha furumuhu ah ee dagaaladu ay ka socdaan dagaaladan ayaa sidoo kale ka socda dhowr goobood oo ka mid ah deegaanka maxaarada awal hal furun ayay lahayd waxaana furuntaasi ay ahayd meel u dhow magaalada Tabratabar isla markaana halkaas furun ayay ka dagaalamayeen ciidamada TPLF iyo kuwa maxaarada oo militariga garab ka helaya laakiin hadda dagaalka deegaanada maxaarada ayaa noqday in ka badan 3 furumood oo jiha oo dagaalo ay ka socdaan Canfarta ayaa sidoo kale waxa la gaarsiiyay hubkii ugu badnaa ciidamada ugu badnaa oo ay militariga dawladdu leedahay kuwaas oo dagaalo ka wada deegaanada Canfarta lana dagaalamaya TPLF dagaaladan shanta maalin socdo ayaa waxa ay jihahan ka socdaan deegaanada maxaarada Canfarta naftirkeeda deegaanadeeda dagaalo ayaa ka socdo lamana oga sida dagaalku iyo xaalku uu noqon doono maadaama dagaaladu ay yihiin kuwa aad u adag oo ka socda deegaanadan iyadoo sidoo kale aan wali la hubin sida ay isku bedeli karaan dagaalada ka socda Itoobiya guulo waaweyn ayaana la kala sheeganaya labada dhinac iyagoo dhinac walba uu sheeganaya in dagaalku uu ku gacan sareeyo isla markaana ay ka hayaan guulo waaweyn ama ay gaareen dagaalka guulo waaweyn shalay dagaalkan waxa uu ka socdaa agagaarka Gaashan waxaana halkaasi dagaal culus oo ku dhex maray kooxda TPLF oo rabay inay wada helaan kadib markii dhawaan dib looga riixay dagaalo kale ayaa markale uga bilowday Tabrasabit halka la yiraahdo Meersa isla deegaanka maxaarada ka tirsan shacabka Meersa oo la hadlay warbaahinta Etho 360 ayaa u sheegay in hubka culus ay ciidamada militarigu soo ridayeen shalay ilaa xalay ay halkaasi ku bartilmaameedsadeen balse ay la waayeen bartilmaameedka waxaana ay sheegeen in guriga shacabka hubkaasi ay burburiyeen kooxda TPLF ayaa sheegatay in xalay ay qabsadeen Hague halka la yiraahdo oo magaalada Teese u jirta wax ka yar 24 kilomitir marka laga yimaado warbaahinta dhinacyada is haya oo guulo sheeganaya ma jirto warbaahin madax bannaan oo dagaalkan ka soo warantay ama xog ka keentay taasi oo kaalin gooniya noqon karta iyada oo dagaalada ka socda Itoobiya dhinac walba oo guulo sheeganaya ciidamada militariga Itoobiya ayaa la sheegay in qaarkood dagaaladu ay iska baxayaan oo ay furumaha faarujinayaan halka kuwa kale oo ka tirsan militariga dagaaladu ay ku dhinteen dagaalka waqooyiga Itoobiya ee maalinkii shanaad uu u dhamaaday lana ogeyn sida dagaalku lagu soo gabagabeyn doono ayaa waxa la ogyahay hadda in ciidamadii ugu badnaa iyo sanadii military ee ciidamada dawladdu ay gaarayaan furumaha laakiin qorshaha ugu weyn ee la doonaya ayaa in kaalin wax ku ool ay qaataan xubnaha labada dhinac ay isku haya dagaaladan ka socda waqooyiga Itoobiya sidii lagu soo gabagabeyn lahaa
beesha caalamka ayaa qorshe u raadinaysa inay soo gabagabayso colaadan, waxaana maanta muuqanaya buundooyin ay jareen Amxaarada inay kasoo tallaabeen ciidamada Tigreega, kuwaas oo u sameystay buundooyinkaasi qoryo ay kusoo tallaabaan islamarkaana ay kaga soo gudbeen buundooyinka macmal ah oo iyagu ay sameysteen. waqooyiga Itoobiya ayaa buuraleyda waxaa la sheegay in Tigreegu ay sameysteen in ay kasoo dul maraan, qaarkoodna waxa ay soo dhex jibaaxeen biyaha webiga iyaga oo gudaha u soo galay gudaha deegaanada Amxaarada. dagaalkan ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa sii karar qaadanaya iyaga oo marmarka ka dambeysa Amxaarada iyo xulafadeeda ay difaac xoogan galayaan. dagaalka ayaa weerar iyo weerar celis, waxaana weerar celis Amxaaro iyo militariga oo isku garab ah, halka weerarku ay yihiin ciidamada Tigreega iyo kuwa TPLF. colaadda ka aloosan Itoobiya ayaanan ilaa iminka xal loo helin, iyada oo maalinba maalinta ka dambeysa xaalku wiji kale iyo sidoo kale isbedel kale uu ku imaanayo, oo ah in dagaalku uu sii laba jibaarmo. dagaalkan oo waxba aan la iskula harin ayaa waxuu hadda maalintii shanaad uga dhamaatay deegaanada Canfarta iyo Amxaarada, iyadoo xulafada militariga iyo kuwa Amxaarada dhinaca ay la dagaalamayaan Tigreeg, halka dhinaca kale Canfarta iyo ciidamada militariga ay la dagaalamayaan ciidamada TPLF oo dagaalo xooggan kula jiraan. labada dhinac ayaa baahinaya warar baahinaya, waxaana ay ku sheegayaan in dhinac walba uu guulo ka sheeganayo. si gaar haddii aan u eegno muuqaalkan aad daawanaysaan, waa muuqaal ay baahiyeen saacad ka hor TV-ga ay leeyihiin Tigreega, iyaga oo uu muujiyay in hubkan aad arkaysaan ay ka qabsadeen ciidamada militariga Itoobiya. ciidamada militariga dagaalada ka socda Itoobiya iyo sidoo kale jihooyinka dagaaladu ay ka socdaan, markii aad qiimeyso xaalka Itoobiya waad ka sabraysaa, sababtoo ah Itoobiya maalin shanaad oo xiriir waxa ka socda dagaalo, waxaana dhinaca kale Oromada haddii aynu eegno ka jira xaalad kale oo dhibaato ah, taas oo kaalin weyn ka qaadan karta colaadda ka taagan gudaha dalka Itoobiya. haddii aynu eegno sidoo kale wararka kale ee la xiriira ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hadlay colaadda ka taagan gudaha dalka Itoobiya ayaa guulo waaweyn ku tilmaamay dagaalada. waxa uu sheegay in guulaha la gaaray dowladiisuna ay gaartay ay calaamad u noqon karto ballanqaadyadii iyo kartidii uu isagu ballan qaaday, sida uu hadalka u dhigay. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa sheegay in guulihii la gaaray sanadihii la soo dhaafay ay calaamad u yihiin ballanqaadyadii isagu uu sameeyay iyo karti dowladiisa ay leedahay, taas oo uu ku tilmaamay in dagaaladu ay guulo waaweyn ka gaareen ciidamada militariga. hadalka Abiy Ahmed ayaa imaanaya xilli dagaalo culus ay ka socdaan Itoobiya oo labada dhinacba ay guulo ka sheeganayaan, inkastoo aan la qiyaasi karin cidda sida rasmiga uga gacan sareysa dagaalada. furmaha dagaalka ee waqooyiga Itoobiya ayaan la ogeyn cidda sida rasmiga ugu gacan sareysa, maadaama dhanka militariga iyo sidoo kale dhanka Tigreeguba ay warbaahinadoodu wararku marinayaan, warbaahin madax bannaan aysan goobta ku sugnayn. haddii ugu dambeyn aan u eegno jabhadda Oromada ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay ka wadaan xuduudda u dhaxaysa Amxaarada iyo Oromada, halkaas oo la sheegayo inay doonayaan inay jaraan wadada xiriirisa xuduudda dhanka Djibouti. Oromada gaar ahaan jabhadda xoreynta Oromiya ee OLF la yiraahdo ayaa waxa ay heshiis la gashay jabhado dhowr ah oo Bishanguul iyo jabhado kale oo ay ka mid yihiin Ola, waxaana qayb ka ah jabhadda heshiiska lala galay TPLF, iyagoo dhammaantoodna waxay heshiis ku yihiin inay la dagaalamaan ciidamada dowladda iyo kuwa taageerada oo muujinaya. xaalka Itoobiya ayaa markan faraha ka sii baxaya, iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa jabhad ay soo baxayso, jabhadaasna ay heshiis la galayso jabhado kale oo ka soo horjeeda xukuumadda Abiy Ahmed ilaa iyo hadda wax xal uma haya xaalka guud ee Itoobiya, waxaana dalal uu ka mid yahay Turkiga ay raadinayaan in wada hadal lagu dhameeyo xaaladda Itoobiya. baaqiyo caalami oo soo baxay ayaa loogu baaqay Abiy Ahmed inuu ka laabto go'aanka uu argagixiso ugu aqoonsaday ururka TPLF si loo bilaabo wada hadallo rasmi ah oo labada dhinac dhex mara. waxaa sidoo kale la ogyahay in haddii uusan ka laaban Abiy Ahmed go'aanka ah in argagixiso uu aqoonsan yahay TPLF aan wada hadal bilaaban karin ilaa uu go'aanka ka laabto. go'aankaas ayaa u baahan qorshe dheer oo ah in baarlamaanka la horgeeyo, kadibna baarlamaanku ay ansixiyaan, kadibna sidaas looga laabto wada hadalna la isku yimaado. Abiy Ahmed hadda waa uu ka jilcan yahay sanad ka hor siduu ahaa kadib markii uu weerarayay gobolka Tigreega ee maamusho, gaar ahaan markii ay qabsadeen magaalada Maqal oo caasimad u ah gobolka Tigreeg. laakiin hadda TPLF waxaa loo aqoonsan doonaa urur caalami ah oo ka dhisan gudaha dalka Itoobiya, kadibna waxaa si toos u bilaaban doona wada hadallada lagu xalinayo xaalka Itoobiya. haddii xitaa la xaliyo TPLF iyo dowladda, waxaa xillis u baahan arrinta Tigreeg iyo Amxaaro oo aan weligeed dhammaan doonin. sidoo kale arrinta Tigreeg iyo Canfar ayaa iyana weligeed dhammaan doonin, u baahan in si gooniya loo xaliyo maadaama xaaladda guud ee Itoobiya ay faraha kasii baxayso. waayahay saaxiibayaal, guud ahaan barnaamijyadeedkeena halka ayaan kusoo gabaynaa qaybtiisa labaad, tan iyo barnaamijyadeedkan nabadgelyo.